assalaamu calaykum ku soo dhowaada janalkeena xinjiraha jacaylka. maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa erey ku saabsan badda rajooyinka. daawasho wanaagsan. jeclaan lahayaa in sheekadeennu dheeraato oo ay saacado badan qaadato iyadoo aysanna soo dhex gelin wax hakad ah, laakiin taasi waa rajo oo keliya. markii aan arkay wax walba waxay igu noqdeen la yaab, xamaasadeyduna waxa ay noqotay mid deg deg ah. ma garanayo waxa igu dhacay. waxaan dareemaa sida inaan ku dhex jiro godka jacaylkeeda. markii aan dhegaysanayay sheekadeeda, waxaan mar walba si mug leh u dhegaysanayay tafaasiisha ereyada ka soo baxayay gunta qalbigeeda, sida inay aqligayga ka dhex raadinayso meel ay degto. had iyo jeer waxaan aad ugu fikiri jiray wax walba oo iyada ku saabsan, xitaa waxa ugu yar, inkastoo ay aad u yarayd sheekadeenna, balse weligeed kama aysan bixin maskaxdayda xitaa hal daqiiqo. maxaad qalbiga u gashay aniga oo markii hore go'aan adag ka qaatay inaan weligeed cidna jeclaan, balse wax walba waxay ku dhaceen sikadiisa, sida inaan mar kale qarqarmi doono badda rajooyinka. sheekada saqdhexe waxay la mid tahay sida maalin qurxoon oo kale, codkeeduna waxa uu laxamo qurxoon ku samaynayaa qalbigayga. wax walba waxay isbedeleen maalmihii tegey. waxay la noqotay sida inaan jacaylkeeda u sii jidaynayo, aniguna aan iska celin karin. maalintii aan maqlin codkeeda waxa uu ila mid yahay maalin xun oo wanaagsanayn. maalintii aan fiicnaaday waxay noqotay mid ka sii yaab badan. markii aan u duulay hawada sare, waan jeclaaday oo indhaheeda ayaan jeclaaday. waxaan ka baqi jiray mar walba inaan u sheegto waxa qalbigayga ku jira oo dhan. aad ayaan ugula labaalabayn jiray arrinkaas, waayo ma aanan aqoonin sida aan ereyada iskugu aadnaa lahaa aniga oo indhaheeda hortaagan. wax aab dareemi jiray sida in afkaygaba uusan hadli karin. waxaan ku dhaartay rabbiga abuuray dholasheeda quruxda badan. waxaan aad ugu xiisay maalmihii wacnaa ee agteeda aan ku qaatay. wax walba oo aniga igu saabsan ayay aad u danayni jirtay, sida inay jeceshahay oo kale. anigana sidaasoo kale ayaan u danayn jiray, balse ma aanan ogeyn inay jeceshahay iyo in kale. wuxuu ahaa dareen aad u adag. wax walba oo ay jeceshahay ayaan aad u dhegaysan jiray, waayo codkayga qurxoon ayay igu sheegi jirtay. maxay waxaan oo dhan kadiis ugu noqdeen? rajadayda ugu weyn waxay ahayd inaan arko iyada oo dhoola caddaynayso. maxaa sidan oo dhan ugu noqday qof ku waalan jacaylkeeda, sida inaan horey u arkinba qof iyada oo kale ah. jacaylka aan u qabay iyada waxa uu ahaa mid muuqda oo nadiif ah, oo aanan lahayn xujooyin iyo waxyaabo kale. maxaad igu samaysay oo maskaxda iga qaaday ilaa heer ay ereyadii iga kala lumaan? rajada ugu weyn waa indhaheeda, heestayda ugu qurxoon waa codkeeda. sideen ula dagaalaa iyada? sideed ku baranaysaa sharciyada jacaylka adigoo isla markaas ka baqaya inaad wax jeclaato? haddii halkan soo gaadhay, waxaan kaa codsanaya inaad janalka subscribe saarto, muuqaalkana aad like garayso. haddii aad u baahato ereyadan oo qoraal ah, waxaad ka heli kartaa janalka aan ku leenahay telegramka. waxaana soo dhigi doonaa qaybta hoose ee commentiga ama descriptionka. soo join garee. mahadsanid.